wanaagsan baan ku maqlaa meel gaar ah joogtaa Soomaa qolkayga ku jira ku jirtaa sax waliba odayaashan kaaga reebay Xasan Usmaan oo ku jira ma garatay Xasan Usmaan iyo kuwa kalena Xasan Usmaan ku jira Xasan Usmaan waa joogaa haye عاشلين وجهه صح عبد العنا وجهه صح محمد الله وجهه وين قرت عبد الله التجار محمود ايبي صح odayaasha badan baa meesha ku fadhina ma garatay waan qart dadkii ehelkaaga ahaa waan nahay ma garatay waan qart wanaagaagana waan rabnaa xumaantaadana ma rabno صح waxaan jeclahay intaana meeshaan marro inaad martaan jeclahay waan qart yaabahan hadda media aad soo gelinayso odayaashana waan kugu dhiibi waxaan ku leenahay tol iyo walaal iyo adeer baynu isu nahay waxaa media aad soo gelinayso inaad ka baxdo oo aad mar dambana aan soo gelin media annagu dawladdu waa dawladeennii waynu wax xumaanu kama sheeganayno waxaan wanaagahayn kama sheeganayno iyo horumar aan ahayn wax badan bay dawladdu waddanka iyo dadka u qabatay waxaas aad hadda media soo gelinayso inaad media joojiso oo aad joogtayso midii aad soo gelisay bedelkeedii baanu kaa codsanaynaa mucaarad waxba ma keeno dawladdaagii iyo dadkaagii iyo bulshadaadii inaad bartanka kaga jirto inaad tahay qurbo joog deegaanka inaad nowsaa kugu xisaabtanno inaad wixii hore aad ka tanasusho oo aad raaligelin ka bixiso aadna isasaxdo annaguna intaa waana odayaashii waanu kugu ducaynaynaa sixitaankaaga inaad saxdo baanu kaa rabnaa ma garatay nimcaano waan gartay marka arrintaasaan hadda u fadhinaa odayaashana waan kugu wareejin oo hadda midba midkaad doontaad la hadli marka arrintaa talada aanu wadanaa talada inaad nala qaadataan rabnaa ma garat waan gartay aye maxaa kula quman marka fikirkaa tolka kuu soo jeediyey horta waa ma garanaysaa horta anigu waa go-aanka saan u qaatay oo ma garanaysaa nin ragoo go-aan qaatay baan ahay in ma garanaysaa dulmiga idin saaran idinka qaadana waan rabaa eega waan ogahay waa idin garab fadhiyaan maamulkii iyo kii afka marooraa waa idin ag fadhiyaa ma garanaysaa cabdikaafi ah waan kolley waan ogahay inuu idinla joogo idin qasbayo aniguna hadda diyaar oo miihi inaan hadafkeyga ka soo noqdo anigoona cabdiile ka takhallusin ma garateen ummaddana aan ku kicin xaqiiqda dhabta ee jirtana aan u sheegin ummadda Soomaaliyeed dal iyo dibadba go-aankaygu waa taa shalayto asagana khiyaamay annagoo duurka ku jirra intaan u nimaanay iyo warqado beena naga sixixday oo dad nagu laayay oo ummaddii cadow nooga dhigay maanta oon waddada saxdaa ku taagnahay dee ilaahay wuu arkaa haddii aad igu habaaraysaan iyo haddii kaleba dee inaan waddada xaqaa ku taagnahay ilaahay wuu arkaa iyo dembigu inaa cabdiile iyo xurufadiisa iyo cali yuusuf galaamna ilaahay wuu arkaa cidnana weji kama rabo boqolaalkii milyan ee la nabaya ee la leynayayna kama duwanidiin new boolisku leynayey asaga nagu leynayey uu dira lahaa kama duwanidiin halganna waa loo dhintaa haddii aad go-aankayga waa kaas maalmahan teleefon ma qabanaynin magacana si fiican ooma fiirinin balse haddaan kaa qabtay kol inaan hadalka iyo mabda'ayga idin caddeeyo waan aad baan ugu baahnaa hadalku iga dhan yahay war kalena ma garanaysaa ma jiro idinkana si aad ma garanaysaa wuxuu idin yeelin ha idin yeelo kolley cabdiile wuxuu doono kolley habeen uu khamri kasoo dhargan buu idin caayi oo idin garaaci waan ogahay si idinkuna sidaad iskaga celin kartaan af iyo adinba iska celiyaan idin dhihi lahaa wuxuuna dadkan dabadooda idinka soo dirayana ma garanaysaa ani hala imaanina hadallada may maqashaa nimcaano si fiican aad ii dhegeyso walaalkay wax nala jooga waa annagii keli ah حرام بكتها وإحنا نلجوجا ونجسمته والله وبالله وسننا نلجوجا وأنا كليه. عبسي بدي لها اللسان حقيقة نوحو شليته مع عدالة باكتي مع عدالة باكتي تشليته مركان هذا كي يجب أقول لك سنة يدي صورته. سوى نفسين. إن يربى أنا مركب كلاه وأنا كبد عوداشان كورجين
in yar iga dhegayso waxaan kuleeyahay waxaa waxba kama jiro wax laya waa annagii wax noo yimid amana garab taaganna ma jirto ama wax noo dhiisanaya waxaan ku leeyahay walaalkayow arrintaa annagu raalli kama nihin odayaashii adeerada ilmo adeerada waanu idin lahay waxaan ku leenahay waxa aad sheegayso waxba kama jiraan ruwaaga akhrinaysa jooji horumar iyo wanaag baanu qabnaa wax kaloo khalad oo hadda waxaad sheegaysa annaga aad noo qabanna ma jiro waxaan ku leeyahay cabdi sheekh ibraahim ku wareejin waanu ku ducaynaa horta cidna ha igu wareejina hadday maqlaan cidna ha igu wareejina hadday maqlaan mabda'aygu anigu meel nabadgelyo ah baan joogaa anigu sidiinoo kale lima qasbayo aniga codkayga iyo xorriyadeyda iyo wixii dhacay aan arkayba xor baan u ahay ma garateen cid iga hor istaagi karto ilaahay untana ma laha ummadaana ma garanaysaa waan baraarujin in dulmiga cabdiile iyo boqolaalka milyan ee bini aadamku wax xasuuqay inaan ma garanaysaa aan iska soxaan ummadda u sheegay inaanaan dembi aana lahayn oo asiga